qarihii lala beegsaday ardadii qalin jibinaysay wale qarixii shaamow xusuus calool xumalow nagu reebay waa gumaadkii ardaydii dhaqaatiirtii iyo mas-uuliyiintii qaranka war saxaafiyiintii maxaa uga tagtay waxaan la iloobi karin oo maalintaa meesha lagu laayay dadkii ahaa indhaha bulshada iyo aqoonta ummadda wasiiradii arrimaha bulshada sida ibraahim xasan cadow waayeel qamar salebaan colaad rooble iyo qaar kaloo badan war waxaan la iloobi karin dhaqaatiirtii halkaa lagu laayey oo ay ka mid ahaayeen dictor shahiid shaybaaristihii soomaaliya ugu fiicnaa oo ileen dictor shahiid halkaasuu ku shahiiday wiilkiisana qarax ka dambeeya uu ku shahiiday war dadkoo dhan ma shahiide war waxaa la iloobi karin dhaqaatiirtii ugu horraysay burburkii kadib soomaaliya ka soo baxda ee jaamacadda banaadir ay soo saartay ee ayagoo faraxsan murugi loogu bedelay qiil dambe ma harin iyo diinto lagu qaraabtaaye qurac jabay sidiisii qarankii mawliicay aryaa kaalaya waadinka maanta o dhan waa warayda ku hayaysta cumar finish idinma dhihin ooyi mayna waan aarsanayna warni waanlaa tahay oo intaan waa ooyin mar hore la duubay hooqayay qayladhaan hooqayey tubti adeer maxaa la barooranaysaan rag wacan walbow jooge ma qaraxu jooga marka war abwaankii sameeyey qayladhaan waa waray cabdisharac ayaar jecel sow xildhibaanka u noqda ma heesin maheedna mayligajeeda kiilaha imaa xildhibaanow haal qaado xildhibaanow haal qaado war qaraxii soobe kama samayn hees aryaadhaha qaraxi shaamo waxaan ku xusuusnaa dictor dufle oo warramayay hortiisa ka dhacda qam ilaahaysa waa ku shartira asaga warkii arkahaysaamaha ee ardada lagu laayay ayaa masiibo ka dambaysay ahaa warnimiya hondhoon iska tirteenna qarax kan kuhumaay may haayay kan soobe kadhii 14 Oktoobar war waxaa la yaab lahayd wiilka shaamow isku qarxiya ardada ku qarxay iyo dhaqaatiirta Denmark ka yimidaa la yidhi marka waxaan soo xasuustay gabayga abwaan faarax shawle wuxuu yidhi jihaad ruuxa naga doonaya Yurub ka soo duulay tanuu leeyahay maasaa gaal u dila waayey war qurba joog wax walba ka filo ma qorax joogtada loo soo diray war qurba joogtu isku mid maaha dad wanaagsan iyo dad xunba waa leedahay inda geeli abwaankaayoo dhihi jiray allow yaa isgarabsada kollay kalama guurtaane waa qurba joogaa la yidhi isaguba war indha geelaha aad sheegaysiin bidaar ma leeyahay qurba joog bidaaray leedahe war ra'iisul wasaare khayra iyo madaxweyne farmaajoba waa qurba joog dhexdhexaada war ma haysiine nin la yiraahdo Jaayis Sarwaan Mustafa ayaa soo baxay la yiri oo shabaab madax u ah waana nin Mareykan ah sirdoonka Mareykankuna waxay dhaheen cidii soo sheegto $5 milyan ayaan siinaynaa waxaan anigu la yaabanahay jihaadka oo Mareykanka waay oo Soomaaliya ka soo raadshay hayehe majaahil sirwaalaha hadana noo soo shaqo tagay war Abu Mansuur al-Amriki intuu dilay labalabkeed ayuu marayaa la yiri hadda war Cabdalla Fasuul intuu dilay ka badan uu rabaa inuu dilo oo adeer magodan u baradheeraynayaa argagixisada madaxdooda haday ajaanib Mareykan yihiin madaxda beesha caalamka dawladda hogaamisan ajaanib yihiin maxaa noo yeela marka masaakiintana loo soo shaqo tagaa miya aan libaada waa weerin jira ka dheeraysan leeri war ama shabaab ha ahaadana ama dawlad ha ahaadana ama mucaarad ha ahaadeen xarfaan oo dhabi waa qurba joog war waxa la yiri dheeraadoonnaha dibadaha ka yimid oo dalal kale ku yeeshow hana dumin naga joog hore waxa loo yiri ninkii laba dal yeesha midkood waa dayacaya war arabtu ma yartay man rakiba farasayli shaqdan waduburan yeerti war ma aysan wiil cabdidhaanta la yiraahdo live soo galay wuxuuna yiri qadiija maxamed diiriya shirkii dhalinyarada inaan masraxa ka heesay diiday ay kala farabadanna waa daba dhigay oo afkaygu karin oo laandheeraan ay ka mid tahay qadiija maxamed diiriyana waxa Facebook lagu weydiiyay maxaad cabdidhaanta masraxa ugu diiday ayaduna waxay ku jawaabtay anigu cabdidhaanta ma arkin masraxna uma diidin ee wiil cadow martida kamid ah oo socodkiisu ugu bataan ka celiya masrax ee ma laba cabdidhaanta jirta warnimada aniga waxa igu yaa badan ninka fanaanka sheeganaya ee raba inuu u heeso ummadu uu kala saaray laangaab iyo laandheere war sanadkan fanaaniinta falaashka ku heesta waa 4.5 war waxa la yiri wiilka wasiirada
khadiija masraxa ka celisay isagoo madow baa ugu dambaysay laakiin hadda gacantii saddexaad u marayaa baa layidhi warniyo walla weynay waa hoogteene annagu xagga eega gabdhahan ku ogeyn in iscaddeeyaane raggiinni mi iscaddeeyaan warfool buuga ayaantan leefka la soo gelayo waa batayaa la yidhi maanta u dambaysane sheekh cabdiqaadir soomo ayaa leef soo galay war muxuu soo doona ma sheekhu malaa soo laabtay war ma booliska waddada u diida yaa arada ninkaxii maa laga celiyeyne warna miyaa ina fatwooda fadoohaya ka aale warwarkaa naga dhex geline shiikhu maanta cabdiraxmaan cabdishakuur ayuu ku dhegan yahay umal miyuu ka horiye maya xatardiida uu ka dareemay war sheekh sooma wuxuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur ha toobad keeno hadda ka hor wuxuu yidhi culamaa usuu ayuuna dhihi jiray haddana xadiis rasuulka laga wariyay ayuu ku xadgudbay marka waxa uu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur ha toobad keeno war ha toobad keenadaan waa ridoobay miyaa ku hoos qarsoon lijoojii banaan lijiifay banaan waanele aryaadhaha waxaa hore loo yidhi hey tusbaxaan toobaad loo leehayn inta la taagan xatira tusbaxaan toobaad loo leehayn inta la taagan xatira abdulla walmooshidii tusbax nafta jeenna iskaraacsanayna war tusbax waa kukuleetarna waxaa lagu xisaabaa warnimayo anaa war idin haya ayaantan soomaalidii deganeed South Sudan ma dalkay ku soo naqdeen waxay ka cabanayeen dhul ay degan yihiin oo ka guura la yidhi war goofadheedun languna niindaga waaysan namaasku degaana war goof lama dhahe xaafadda kaakuma la yidhaa jubba ayayna ku taallaa hotel jubba agtiisa war dad maranaatiina warka naga dhegaysta safiirka Soomaaliya jooga South Sudan Xuseen Xaaji Axmed ayaa kulmiye la hadlay wuxuu u sheegay in Soomaalida dhulka ay ku doodayaan dawladda South Sudan leedahay waxayna qaad ku gadaan meesha lagu haysto qaadka oo dalka mamnuuc ka ah ayaana joojiye laga waayay see u joojinayaan dalkoodii ku soo qarribeen ma South Sudan ay waturaya buga iyo kimiya la mamnuucay war hadda la mamnuuc rabaa in dhageyso safiirku wuxuu yiri Soomaalidu waxay ku dooday qaadku inuu dhaqan u yahay kaaga sii darane ajaanib Soomaali iska dhageysa darooga ku dhex gada marka ganacsatada waxa la yiri dhulka la idin siinayaa ka guura meeshan ayagiina waa lagu kari laayahay war wiilisha mayga garawlan jaad aamina hunduro walle kuwaasi waa Soomaali saxa war kuwii gudaha joogay ayaaba markii la dhahay guryaha danduguud ka baxa nin walba dhashigiisu soo qaadanay anigu waxaan ka baqayaa Soomaali tira badan oo South Sudan joogtay ayagoo dhooban in dhulka Sudan ka qaado laga qaxiyo waran goolkii galmudug oo doorsatay hadan ilmihii ku dhashay baa qaangaara awoow hooga baa ku aasal ya South Sudan ka helfadaase South Sudan aqliga aan ku maqlay iyo midka aan Soomaali ku aqaan ilaahay amarkii waa jiraan laakiin u malay ma in lagu kala badbaaday war ala kulli xaal markii la yaabay muddadii ayaa loo kordhiyay 15 maalin oo zaid ahana loogu daray war ma aysiin taliga booliska sakiye waxay tiri duufaan iyo roob dabaylo wata soo socdaan la yiri warna miyaa booliska Soomaaliyeed dalay anti dhulku dhanka adkaadi yasaalaasha hawadan baa ir ka galay war taliyii boolisku wuxuu tababar ciidan boolis ugu soo xirayaa dalka Djibouti roob iyo duufaantaad sheegaysaana kama hadlin buugax ma ku jira ciidanku tababarka u soo xirayo war ma aysiin xogayii xisbiga himilo qar xildhibaan Cabdixakiim Macali Axmed waa laga saaray xisbigaas waxauna eersada markuu taageero dawladda war xildhibaan Cabdixakiim war kama haysaane wuxuu yiri xisbiga ragaan iskala tirsannahay isku deegaanna nahay ayaan ku dirnay siyaasadii deegaankaas waxaana isku khilaafnay guddigii hobyo lagu soo sameeyay hal looga dambeeyo siyaasadda beesha arada war ma hayshine buuli burta banaan baxweyno balaarana ka dhacay dadkiina waa la xabaday qaarna waa la dilay qaarna waa la dhaawacay waxayna dadka ka careysan yihiin Hirshabeelle saddex gudoomiye u magacaawday war buuli burda sheegaysa in shirkii dhalinyarada magaalada Muqdisho lagu qabtay saddex gudoomiye oo dhalinyaro oo Hirshabeelle ka socota ka soo qayb gashay war saddex gudoomiye ka cabanaysaane saddex madaxweynaha ba samaysateene war yaa waa idab daranta madaxweynayaasheena saddex todobaan leenahay iyo laba ra'iisal wasaare war ma aysiine sarkaal ka mid ah ciidamada Hirshabeelle iyo ilaaladiisa shabaab ku biiray war musharaxa madaxweynaha galmudug Cabdiraxmaan Odawa wuxuu yiri ayax ka soo guuray Itoobiya ayaa dhulku ku habsaday hal laga soo gaaro wareeda urur goboleedka igad waa tii loo sameeyay ayax inuu la diriree arrimo aysan shaqaba ku lahayn miyay ku mashquulsan yihiin aaw ma naga qabtaan baalkan war igad hogaankeedii ku heshiilaadaniyo war madaxweynaha Sri Lanka wasiiradiisu wuxuu amray inaysan iibsan karin gaadiid cusub yaa kaasu kii waalnaayo walaalkii ra'iisul wasaaraha ka dhiga walee maahin Abdullaw kaas muwaalan hiil walaal yeleere war Trump wuxuu yiri hogaamiyaasha kale NATO waa waalan yihiin war Erdogan wuxuu yiri madaxweynaha Faransiisku ma fiyoobay isbaaro war ra'iisul wasaaraha hore Malaysia waa qirtay 40 milyan inuu musuqmaasuqay yaa matuuga u naqday war Trump wuxuu yiri Erdogan haduu Ruushka hub ka gatay ana iga gada waayay una qabataynan ku soo roga adeer goorma ambarana siyaasi noqotay warnimayaanu xalay waxaan ku riyooday abwaanin
geeloo gabyaya wuxuu yidhi carruur waayo aragay hadday kula dardaarmayso sida madaxda soomaalida ee been ku hadashaaye aqoon-yahan badraaniya hadduu jaahil kugu sheego inaad ceel biyo u doonatuu kugu dhaliilaaye markaasaad xishoodkaa dartiis oon u dhimataaye waddankana nin soo kala bartay oo daalay baan ahaye nin kismaayo jooga hadduu xamar abbaaraayo ceel dheeruu ka soo raaci jiray doonta weligiiste intaasuu ku soo koobayan ayuusan sii badin haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamada gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi